dhaarta aad maanta dhaarateen qiimo weyn ay idinkugu fadhisaa. dhaarta aad maanta dhaarateen waxaad ku dhaarateen dalka, dadka iyo diinta iyo calankeena. waxaana rajeynayaa inaad dhowri doontaan dhaarta aad halkaas ku dhaarateen, maskaxdiina iyo maankiina ay ku jiri doonto mar walba. waxaad ku dhaarateen in aad ilaalin doontaan xeerarka u yaalla ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo xeerarka guud ahaan dalka u yaallo. sidoo kale waxaad ku dhaarateen inaad u fulin doontaan amarada madaxdiina si hakasho la'aan ah. waxaan rajeynayaa dhaartaas inay mar kasta maskaxdiina maankiina ku jirto. tallaabo kasta aad qaadaysaan iyo shaqo kasta aad qabanaysaan, dhammaan ururka dhaaranaya waxaan u dardaarmayaa in aad maskaxdiina dib u xasuusisaan waqti walba iyo saacad walba iyo meel walba aad joogtid dhaartii aad dhaaratay oo ahayd waxa igu wallaahi igu billaahi igu tallaahida ahayd inaad maskaxdaada dib u soo gelisid inaad ku dhaaratay maxaa la yiraahdaa dalka, dadka, diinta iyo fulinta amarada madaxdiina iyo ilaalinta sharciga. intaasba inay idin ahaato mar walba lambar 1 ayaan idin rajeynayaa insha Allah taala. sidoo kale waxaan rabaa inaan askarta halkan joogto aan kula dardaarmo hal dardaaran oo ah ciidanimada qof walba markuu soo galayo wuxuu ku soo galaa dooqiisa iyo ikhtiyaarkiisa. laakiin mar hadduu xeendaabka ciidanimada soo galo waxaa qabanaya sharciyo iyo qaanuun u qoran ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. sharciyadaas iyo qaanuunkaas u qoran ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed sidii loogu talagalay inaad u fulin doontaan ayaan rajeynayaa. midna aad u barataan, gaar ahaan xeerka ciqaabta iyo xeerka dishibiliinka. qof walba askari waxaan kula dardaarmaa tallaabo kasta uu qaadayo maxaa ka dhalan karo waa inuu yaqaano oo dib u akhrisan oo dib u furisaan ayaan idin rajeynayaa insha Allah taala.